ujeedin arday ma hayo dugsigii mar hore aan fasaxay TikTok-gani talo kuma hayo waxaan ku hayo malaho waa macallin dugsi kutubkii quraanka kariimka iyo faafinta diinta islaamka wuxuu ka doorbiday inuu caanimo ka raadiyo isagoo maalin walba ka dhaxniikiya barta uu ku leeyahay aaladda TikTok-ga xumaantana ku madadaaliya kumanaan qof ee ku xiran boggiisa wayaab waase duni aakhiru sabaan macallin dugsi quraan oo u tarfaxaytay inuu iska soo duubo isaga oo ku niikinaya heeso iyo munkar alla naga xaaraantinimeeyey macallinka ka leexday waddadii wanaagga iyo raalli ahaanshaha alla weyne una bayraya dhanka fisqiga iyo xumaanta daawade aan ka dabageeyay sheekadan haddii aad ka xuntahay ficiladan uu ku dhaqmayo wadaadkan marka hore muuqaalka like saar siina sheergare si ummadda looga qabto axadkana ka weecday waddadii xaqa fikirkaagana waa muhiim oo wada ka dhiiban karta adiga oo mahadsan TikTokers ayuu noqday reer beledweyne waa yaabeen dugsi buu dhigi jiray dugsigii dadkii waalidiintii carruurtooda uu dhigi jiray xataa kala baxeen iyagoo ka baqay inuu ka fasahaadiyo awal waxay ula soo doonteen inuu ilaahay kalaamkiisa waxa weeye carruurta u baro oo haddana waxa weeye salaada baro oo kutubta iyo diiniga iyo waxyaabo kala duwan oo markaa ilaahay loogu dhowaanayo oo dhinaca diiniga ku saabsan uu u baro ubadkooda laakiin iyagoo guryahooda jooga ayay walwaleen baqeen cabsadeen iyagoo ka cabsi qaba in ninkan uu dhinaca naarta u jiheeyo subxaanaka yaa cadiim ilaahayow soo hanuuni haddaadan hanuun u qonina wadaadkaas ilaahu ummadaada ka qabo magaciisu waa cabdilaahi xasan cabdi oo loo garan og yahay cabdilaahi cagaweyne waxa uu ku nool yahay magaalada beledweyne ee bartamaha Soomaaliya waayadii hore waxa uu ahaa macallin diimeed masjidkaana ka bixin dadka dariska la ahaa ayaa mar qura la fajacay kadib markii ay arkeen macallinkii carruurtooda wax bari jiray oo ka dhexniikinaya aaladda TikTok-ga wayaab waana arrin ay dadku la fajaceen macallin cagaweyne waalidiintii ubadkooda uu bari jiray kalaamka alle ayaa marka ay daalacdeen muuqaalada fasahaadka salka ku hayo ee uu wadaadkana soo baahiyo waxay si degdeg ah ugala baxeen ubadkooda dugsigii uu wax ku dhigi jiray ee ku yaalay magaalada beledweyne ee caasimadda gobolka Hiiraan dhowr cisho ka hor macallin cagaweyne waxaa soo gaaray dhaawacyo ay u geysteen ardaydii uu waxbaray iyo qaar ka mid ah waalidiintii ubadkaasi oo ka caraysan dhaqamada uu la soo baxay shaybkan 15 jirka ismooday subxaanallah waa 60 jir ismooday 15 jirka oo carrada galgalanaya ehelkiisa iyo qaraabadiisa ayaa go'aan ku gaaray inay qudha dhaafsiiyaan oo weeraro aan gambasho lahayn ku soo qaada maalin walba halka uu ku nool yahay waa magaalada beledweyne ee caasimadda gobolka Hiiraan sidoo kale waxa uu ahaa horjoogaha kaamacaanka ah oo ku yaala magaalada beledweyne waxa uu ku guuray ama isdaba mariyay lacago loogu talagalay in lagu caawiyo masaakiin aan dabka shidan karin oo ku nool kaamka waxa ku dhacay cudur la yiraahdo harsan hana hooyan wuxuu xooray kitaabkii alle iyo qowlkii eebaweyne wuxuuna ku bedeshay inuu TikTok-ga ka dhaxniikiyo isagoo cimri qaalib ah subxaanallah rabbi ha soo hanuunsho